كودي نوفمبر سنة 1922 بريتين waxay la safatay Sacuudiga si loo burburiyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Sultan Cabdimajid waxa uu ahaa khaliifkii ugu dambeeyay ee dawladda Cusmaaniyiinta. Waa la dilay midkiisna waxa lagu qariyay meel guda. Taasna waxay ahayd mid ka mid ah taariikhdii ugu madooba ee soo martay Islaamka. loolan dheer iyo dagaal ay wadeen Wahaabiyiinta waxay dileen 40,000 oo qofood halka ay xubno ka jareen 350,000. I'm surprised that it did not touch on the root cause of. waxaan la yaabanahay dadka dhahayo Ingiriiska kama dambeeyo burburka dhaqan diimeedka ee Sacuudiga ay wadaan taasoo soo bilaabatay 100 sano ka hor. waxa la burburiyay dhammaan dhaqamadii Islaamka meelihii ay ka muuqdeen sida Karbala, Najd, qaar ka mid ah Maka dhexdeeda xitaa waxa la burburiyay dhaqamadii Islaamka. waxay soo gaartay burburinta Khaliijka ee dhaqanka Islaamka laga baabi'inayo waxay ku sii socotay ilaa iyo Sanca. dhammaan kuwaasna waxay dhaceen xilli Sacuudiga ay hayaan ضد مدح إسلامه. هلكم وجنرال كرفيق المعروف. tobanaan sano ka hor ayay ahayd marka Sacuudiga ay bilaabeen in ay burburiyaan dhaqamadii Islaamka kuwaasoo xilligii Nabi Maxamed iyo wixii ka dambeeyay si weyn loo ilaalin jiray. waxa ay burburiyeen dhammaan wixii lagu garan jiray dawladda Cusmaaniyiinta. boqolkiiba 95 waxay Sacuudiga burburiyeen dhaqamadii Islaamka waxayna burburinta soo bilaabeen sanadkii 1985. waxay shaaciyeen ururka Islamic Heritage Research Foundation ee fadhigiisu yahay Ingiriiska. Sacuudiga burburinta waxay soo bilaabeen xilli dheer marba marka ka sii dambayso waa ay sii badanaysaa burburinta dhaqanka Islaamka Sacuudiga ay wadaan. dhowr sano ka hor ayay ahayd marka Sacuudiga ay burburiyeen gurigii Xamza ee nabiga adeerkii uu ahaa waxaana laga dhisay hotel Maka. gurigii ay deganeed xaaskii ugu horeeyay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam ee Khadiija Allah ka raali noqday waxa laga dhigay suuli dadweynaha ay isticmaalaan. Hilton Hotel ayaa laga taagay gurigii uu deganaa khaliifkii ugu horeeyay ee Islaamka Abu Bakar Allah ka raali noqday. waxaa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka. Sacuudiga kooxna lama safnayn dagaalkan kuma aysan jirin. xilligaas Sacuudiga waxay u qaybsanayd ilaa iyo 3 qaybood: Najd, Yemen iyo Xijaaz. Cusmaaniyiintuna waxay ka talinayeen gobolka Najd. Sacuudiga waxay caqabad ku ahayd ama ay ka hor imaaday dawladda Cusmaaniyiinta. dagaalka ay wadeen Wahaabiyiinta waxa uu bilowday horaantii sanadkii 1811 ilaa iyo sanadkii 1818 waxa uu u dhaxeeyay hogaamiyihii Masar xukuumay ee Maxamed Cali Baasha kaas oo wali uga ahaa dawladda Cusmaaniyiinta dalka Masar. dawladda Cusmaaniyiinta dagaalkii ay wadeen Wahaabiyiinta waxay ku eedeysay in Britain ay taageerto Maxamed Cabdi Wahaab. Sacuudigana waxa uu noqday meel lagu burburiyo midowga Islaamka. dawladda Cusmaaniyiinta waxa ay gaartay heer aad u wanaagsan waxayna ahayd dawladdii ugu ballaarneed ee Islaamka u yeesho. waxay gaartay Vienna ilaa iyo Hungary. taasina waxa ay dhacday xilli muslimiinta ay wada mideysnaayeen. laakiin maanta muslimiinta iyo dalalka Islaamkaba uma niyad wanaagsan sidii bari ay ahaayeen. heshiiskii Lausanne ee lagu burburinayay dawladda Cusmaaniyiinta waxa ay soo gabagabaysay jiritaankii dawladda Cusmaaniyiinta. heshiiskii Lausanne waxa saxiixay ama qayb ka ah Britain, Faransiiska, Talyaaniga, Greega, Romania, Japan iyo dawlado kale oo hal dhinaca iyo Turkiga oo dhinac kale ahaa. heshiiska waxa ku jiray in khaliifka iyo reerkiisa dibadda Turkiga la geeyo. Turkigana uu ku dhawaaqo in uu yahay dawlad madax bannaan halkaasna ay ku burburto khilaafada Cusmaaniyiinta. heshiiska Lausanne muxuu ahaa qodobadii lagu heshiiyay iyo waxyaabihii uu ahaa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka xigo. heshiiska Lausanne waxa uu ku egyahay sanadka 2023 taas oo Turkiga u ogolaan doonto in uu soo saarto batroolka wuxuuna ka qaadi doonaa canshuurta gacanka Bosfor wuxuuna Turkiga ku soo laaban doonaa awoodiisa sida ay sheegayaan dadka falanqeeya siyaasadda. sida uu mar sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu yiri waxaan ku bixinaynaa qarash badan iskuulaadkii goobaha lagu barto diinta Islaamka si aan u soo saarno jiil wax ka yaqaano dhaqanka Islaamka. sidoo kale Turkiga waxa uu xubin muhiim ah ka yahay ururka NATO.
waxa uu gargaarka bini'aadanimada geeyaa dalka Liibiya isagoo caawinaya shacabka muslimiinta ee Liibiya. Turkiga waxa uu gargaar bini'aadanimo geeyay dalal badan oo Afrika ka mid ah sida Soomaaliya iyo wadamo kale. ugu dambeyntii Rajab Tayyip Erdogan ayaa noqday madaxweynaha kaliya ee shacabka Turkiga ay si weyn ugu qanacsan yihiin. Turkigana waxa uu doonayaa inuu gaarsiiyo 2023 isku filnaansho dad iyo dhaqaale ah. haddii uu ku qanciyo videogan share dhe, like saar, subscribe dhe channelka si innagana ay noogu noqoto dhiirigelin wax badan aan u soo saarno.